waxaa jirta xigmad carbeed oo tiraahda himamu rijaal tuziilu ljibaal, macnaha himadda iyo in aada han sare yeelato raggu inay himad sare yeeshaan ay ku shaqeeyaan tuziilu ljibaal, buuraha ayay suulisaa oo ay meesha ka saartaa. calashaan soomaaliduna waa kuwa idhaahdo wixii ragu kaco rabbina aqbalo way rumoobaan. ayna wixii geelaa loogu heesi jiray ayaan filaya, wixii ragu kaco rabbina aqbalo way rumoobaan. waxaa jirta maquulad kale oo tidhaahdaa arajul duu culuwi lhimma yanfacu llaahu bihi lumma, ninka himadiisu hal nin oo himad sare yeesha ayaa laga yaabaa inuu ilaahay ummadan ku anfaco. run ahaantii markaan arrimaha aan ka waramayno aan aad qalbigayga u fiirsado, waxaa igu soo dhaca talo goorma ayaa dalkiina iyo dadkiina iyo ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba ay gaari doonaan ama ay heli doonaan oo ilaahay ka soo dhex saari doonaa halyeyga sida ka aynu maanta ka waramayno oo kale noqon doona. goorma ayaa ilaahay dadka dibindaabiyada iyo dibudhaca iyo qabyaaladda iyo kala qaybinta iyo runtii kala qoqobka iyo xarig maleega iyo xasaradda iyo xumaanta ku foogan, goorma ayaa calankoodu uu dhici doonaayo inta wanaagga iyo khayrka iyo waxtarka lihi calankoodu kor noqon doona biidni illaahi tacaala wuu noqon. nin carbeed oo shaaciroo gabiibaa wuxuu yidhi mataa yabluqu lbunyaanu yowman tamaamahu idaa kunta tabniihi wagayruka yahdumu buu yidhi, goormo ayuu dhismuhu dhammaystirkiisa gaadhi doonaa maalinuun markaad adiguna doonaysa inaad dhisteed dhismihii wado kayrkaana dhinacan kale kasoo duminaya ee uu ka baabi'inayo. waxaan ka waramayaa nin magaciisa la yidhaahdo nin muxuu ahaay dhalinyar ahaa oo ka shaqayn jiray nadaafadda ama ahaa qisada waxaa la yidhaahdaa magaceeda min caamili nadaafa ilaa ra'iis addowla. nin kasoo bilaabay shaqadiisa inuu nadaafadda ka shaqeeyo oo gaadhay madaxweyne dowladda wadanka uu ka tirsan yahay. wuxuu barbaaray oo uu ku barbaaray nolol buu ku barbaaray, caruurnimadiisii aada u saboolnimo badan ayuu ku barbaaray maadaamuu ka dhashay qoys saboola. wuxuu ku barbaaray, wuxuu ahaa ilmo yar oo gacantiisa xashiishka ku ururiya oo shaqo ay u tahay, dhinacna waxbarasho kaga jira ilaa uu 18 jir ka gaadhayay. wuxuu dhammaystirtay waxbarashadiisii jaamacadda, kadibna wuxuu shaqo ka helay shirkadda la yidhaahdo Hyundai ayuu shaqo ka helay. 5 sano oo keliya kadib dadaal fara badan oo joogto ah iyo runtii tacab badan markuu sameeyey, waxaa u suurta gashay inuu noqdo agaasimaha shirkadda, inuu noqdo shirkadda weyn ee adduunka oo dhan laga yaqaanay Hyundai ee productigeedii uu dalkeena iyo adduunyada meel walba yaallo. markii uu arrintaa gacanta ku dhigay, wuxuu awood u yeeshay inuu hanti badan helo oo uu laba jibaaro shaqadiisii. muddo 5 sannadood gudahooda wuxuu noqday madaxa guud ee Hyundai. markii hore agaasime ayuu ka soo bilaabay, wuxuu noqday madaxa guud ee shirkadaas. kadibna waxaa loo doortay madaxweynaha dalkiisa koonfurta Kuuriya madaxweynaheeda ayaa loo doortay. wuxuu noqday madaxweynihii ugu da-yaraa ee adduunka la doorto. wuxuu ahaa ninka aynu ka warramaynaa waxaweye ninka la yidhaahdo Liam Bak, madaxweynihii hore weeyaan kuuriyada koonfureed. waxaanu xilka xafiiska haystay laga soo bilaabo 2008 ilaa 2013. waxaa ka mid ahaa ereyadiisa caanka baxay ee aadka loo yaqaanay madaxweynenimadu kamay tirtirin gacmahayga ama kamay baabiinin gacmahayga urta qashinkii aan kusoo kifaaxay.
macnaha qashinkii aan gacmahayga ku ururinayay urtii qashinku weli gacantayda way ka uraysaa anigoo ilaa maanta madaxweyne gaadhay. koonfur Korea waxay ahayd waddanka shanaad ee adduunka ugu faqiirsan ugu liita xagga dhaqaalaha. waddanka shanaad ayay ahayd ee ugu faqiirsan adduunka 50 sano ka hor. saasay ahayd. waxa maanta dhaqaale ahaan ay noqotay waddanka shanaad ee adduunka ugu weyn dhinaca dhaqaalaha. sababtuna waa muhiimadda iyo magaranaysaayay dadaalka ay saareen adeega iyo waxbarashada, macnaha service industry waxa la yiraahdo iyo aqoonta ayay awood badan saareen. wuxuu yidhi anagu ma lihin wax khayraada oo dabiiciya balse waxaanu haysanaa dad aqoon leh. waa ereyada oo had iyo jeer oran jiray. muddo ka hor ninka la yiraahdo Liam Park wuxuu Hyundai ka dhigay boqortooyo warshadeed, ama wuxuu ka dhigay imbaraatoriya sinaaciya ayuu ka sameeyey. macnaha halkuu gaarsiiyey oo aad u weyn buu ka dhigay. 5 sano oo ku xigtayna wuxuu koonfur Korea ka dhigay ama uu bedelay mid ka mid ah 5 dal ee dunida ugu dhaqaalaha waaweyn ee ugu sareeya, isagoo sidoo kale xoojiyey awoodda siyaasadeed iyo ta dhaqaale intaba xoojiyey. markii uu xilka ka degay madaxweynenimada 2013 wuxuu noqday shaqaale ka howlgala hay'ad cilmi baadhiseed oo deegaanka ka shaqeysa, isagoo mushahar ahaan u qaadanaya $2,200 oo magaranaysaayay marka cashuurta iyo waxyaabaha laga jaro. hase yeeshee 1 saac oo uu muxaadaro ama public lecture jeediyo $30,000 ayuu ku qaataa. ninka qashinka ururin jiray wuxuu gaarsiiyey naftiisii sharafta aad arkaysaan, qoyskiisii wuxuu gaarsiiyey darajo sare, dalkiisii oo koonfur Korea ana wuxuu u horseeday sharaf, xurmo, karaamo, qaninimo iyo inay ku faanto waddanka la yiraahdo Korea, inay ku faanto ninka madaxweynaha soo maray. ilaahay waxaan ka baryaynaa dalka iyo dadka inuu inoo barakeeyo.